qadiyada gobolka Gedo oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay isku hayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa hadda waxa ay maraysaa meeshii ugu fulxumeed ka gadaal markii la sheegay garabyo kale oo siyaasadeed inay ka dhex urteen isla markaana dhaqdhaqaaqiyo xoogan ay markaasi ka wadaan gudaha deegaanada gobolkaasi Gedo waxaan idinla wadaagi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay qorshe howleed xoogan oo dowladaha Kenya, Ethiopia iyo sidoo kale sutaga Imaaraadka Carabta ay ka abuurayaan gobolkaasi Gedo si ay u hor istaagaan qorshaha dhismaha maamulka cusub ee dowladda federaalku ay halkaasi ka yegleelayso waxaana la tilmaamayaa in ay doonayaan in guud ahaanba ay ka weeciyaan qorshaha dhismaha la doonayo in maamulkaasi laga yegleelo isla markaana waxa la doonayaa in dhan kale loo weeciyo soo dhawaada wada haday tahay markaaga kugu horeysay ayaa soo booqato halkan subscribe noo saar like garay muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada aan ugu dagal wararka laga helayo gobolka Gedo waxa ay ku nuuxnuuxsanayaan in dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa ay halkaasi ka jiraan kuwaasi oo ay uga loolabayaan laba garab oo siyaasadeed oo xoogan waa dhanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo garab ay hogaaminayaan dowladaha shisheeye oo iyagu markaasi gacan saar leh Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxa la tilmaamayaa in si weyn kulamo iyo kala tashiya kala duwan iyo kala afkaar duwanaanshiyo xoogan ay gobolka ka jirto isla markaana garbiyada siyaasadeed ay si weyn uga arinsanayaan xaaladda gobolkaasi Gedo talabadan waxa la tilmaamayaa inay isku hayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda wadankaasi sutaga Imaaraadka Carabta oo iyadoo adduun lacageed oo tirabeela ku bixinaysa sidii loo hor istaagi lahaa qorshaha maamulka cusub ay ku dhisayso dowladda dhexe ee Soomaaliya garabyadan waxa kala hogaaminaya Macalimu iyo Maxamuud Sayid Aadan oo garabka dowladda federaalka Soomaaliya ka soo horjeeda isla markaana Axmed Madoobe ku garaba iyo sidoo kale garab uu hogaaminayo Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Cabdullaahi Shimbir oo iyaguna si weyn uga shaqeynaya arintaasi oo dowladda garabkeeda jira waxayna doonayaan garabyadan in ay bulshada kala abaabulaan isla markaana siyaabooyin kala duwan ay u qabtaan qorshayaal iyo dibadbaxyo xoogan oo markaasi garab waliba uu ku muujinayo awoodiisa markaasi iyo saameynta uu ku leeyahay gobolka waxa la tilmaamayaa in shirar aan kala joogsi lahayn ay martigelinayaan magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi Gedo gaar ahaan magaalooyinka Dolow, Balad Xawo iyo Garbahaare halkaasi oo siyaabooyin kala duwan kulamo ay uga qabanayaan garabyada siyaasadeed ee gobolka isku haya Janan oo isagu si weyn muddooyinka ugu dambeeyay looga tuhmayay inuu ka garab bixi karo dowladda federaalka Soomaaliya garabkeedu ayaa la tilmaamayaa hadda in si weyn uu isaga muujinayo dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana waxa la tilmaamayaa in rajadiisi maamulka gobolkaasi uu isaga markan hogaamin doono ka gadaal fartaag oo ay dowladdu la doonaysa in guud ahaanba ay ka dhigto madaxweynaha cusub ee maamulkaasi isla markaana malmii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan ay arintaasi dowladda uga shaqeynaysa hadda waxa la tilmaamayaa in si toos ah qorshahaasi iyo dhismaha ay u galayso dowladda galkan waxa hogaaminaya taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad waxaana sidoo kale iyaguna ku xigeenna ka taliyaha sirdoonka Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo iyagu fulinta hawshan ay u wakiilatay dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaana la tilmaamayaa hadda qorshahaasi in si toos ah loo gudagalayo garabkan kale iyagu waxa ay kulamo ka wadaan magaalada Dolow ee gobolkaasi Gedo waxaana ay halkaas kula kulmayaan saraakiil ka kala socota dowladaha Kenya iyo Ethiopia oo fulinta hawsha lagu baajinayo qorshaha dhismaha maamulkaasi ay kala shaqeynayaan dowladaha Ethiopia iyo Kenya walow Kenya aan si rasmi ah loo xaqiijin karin ku jiritaankeeda hawshaasi haddana waxa la soo warinayaa in iyaduna ay qayb ka leedahay qorshahaasi maadaama saraakiil ka tirsan dowladda Kenya lagu arkay kulan ay markaasi la qaadanayeen madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan isla markaana ka dhacay deegaanka Suufta oo hoostaga magaalada Dolow ado ee gobolka Liibaan ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaana la tilmaamayaa in talaabadaasi malmii ugu dambeeyay ay si weyn garabyadaasi uga shaqeynayeen ayna si weyn u doonayeen kaliya in la hor istaago qorshahaasi lagu dhisayo maamulkan laga garab dhisayo kan Axmed Madoobe ee fadhigiisu yahay Kismaayo waxaana la tilmaamayaa Imaaraadka Carabta inuu yahay kan ugu muhiimsan ee markaasi qorshahaasi fashilintiisa ku howlan waxaana la tilmaamayaa adduun lacageed oo tirabeela in qorshahan uu ku bixinayo hore waxa uu isugu dayay in uu ciidamo iyo sub sanad iyo sidoo kale
saraakiil u tababartay ciidamada uu gacan geliyay Madoobe si markaasi uu weeraro dowladda federaalka Soomaaliya waxaana la tilmaamayaa in tallaabooyinkaasi ay socon waayeen haddase waxay isku dayayaan in garabyadan ay si toos ah uga milmaan siyaasadda ka jirta gobolkaasi waxaana la tilmaamayaa in si weyn ay dhinacyadu isu dhex muraasayaan isla markaana garab waliba uu ka shaqeynayo danihiisa siyaasiga marbii ugu dambeeyay waxa ay martigelinaysa gobolka Gedo guud ahaanba tallaabooyin siyaasadeed oo garab waliba uu dhankiisa ka waday isla markaana siyaabooyin kala duwan isugu gudbana janan ayaa la tilmaamayaa inuu yahay ubuucda arintaasi isla markaana si weyn uga shaqeynaya inuu hor istaago tallaabo waliba oo gobolka lagu faragelinayo siyaasiyiinta xubnaha mucaaradka ah ee markaasi garabyada kale la jira ayuu isku dayaa inuu soo dumo sidoo kale waxaa la tilmaamayaa inuu la kulmayo ismada qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale haweenka waxaana uu sidoo kale la shiraya culamaa diinka deegaanka waxaana uu kala shiraya guud ahaanba sidii loo wajihi lahaa isla markaana loo abuuri lahaa jawi nafdoon isla markaana ka shaqeeya guud ahaanba arrimaha siyaasadeed ee gobolka maalmihii ugu dambeeyayna gobolka waxa uu martigelinayay waa xiisado siyaasadeed oo isku gudban oo garabyadu si weyn ay uga shaqeynayeen waxaa la tilmaamayaa isla markaana la sheegayaa in Madoobe mar kale uu doonayo inuu ku ragaal celiyo gobolka isla markaana dagaal uu ku wajaho xukuumadda talada joogta walow ay iyadu doonayso inay hakiso tallaabo waliba waanan ka tarjumaynin qorshaheeda haddana waxaa la tilmaamayaa in Madoobe uu mar kale isku dayayo qorshahaasi inuu fashiliyo waxaa sidoo kale plan B u ah haddii uu guuleysan waayo qorshaha Kenya iyo Ethiopia iyo Imaaraadka ay wadaan in mar kale ay isku howlayaan in ciidamo la geeyo magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi Gedo kuwaasi oo ka amar qaata Jubbaland waxaana ciidamadaasi la kala geenaya magaalooyinka Beled Xaawo Dolow iyo sidoo kale magaalada Ceelwaq waxaase la tilmaamayaa in dhammaantood ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya dhaqdhaqaaqyadan ayaana la tilmaamayaa in garabyo siyaasadeed ay ku lug leeyihiin siyaabooyin kala duwan ayaana maalmihii ugu dambeeyay looga wada shaqeynayay tani waxa ay timid iyadoo dowladda Kenya weli ay isku howlaysa xal u helidda guud ahaanba khilaafka ka dhex xoogan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana taliyaha sirdoonka dowladda Kenya Nuruddin Xaaji maalmihii ugu dambeeyay isaga uu isku howlayay xal u helidda khilaafka dhinacyada ka dhex xoogan ayaa tilmaamayaa weli inay xiisadu taagan tahay mar kale ayaa loo ballamay kulan kale oo ka dhacaya magaalada Nairobi ka gadaal wada hadaladii dhicisoobay ee ka dhacay magaalada Kismaayo hadda waxaa la tilmaamayaa in garab waliba uu ka shaqeynayo sidii mar kale la isku wajihi lahaa isla markaana la isugu soo dhaweyn lahaa waxaa la tilmaamayaa dowladda Kenya inay uga madax fiiqan tahay qorshaha wada hadalada dhanka kale waxa la aaminsan yahay in iyadoo ay tahay wadan ka mid ah wadamada wada hadaladaasi ragaadinaya isla markaana aanan ogolayn in heshiis sax laga gaaro waxyaabaha ay isku hayaan garabyada siyaasadeed ee markaasi isku haya talada guud ee Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaana la tilmaamayaa isla markaana la sheegayaa in guud ahaanba hadda xaaladdu ay ku socoto meel markaasi aanan lama filaan ahayn isla markaana guud ahaanba garab waliba oo isagu awoodiisa tooxsanaya Nairobi ayaana laga dhursugaya waxa ka soo bixi doona isla markaana garabyadu ay isugu tagi doonaan wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo madaxweyne Xasan Sheekh hogaaminaya iyo sidoo kale wafdi Jubbaland ka socda oo Madoobe hogaaminaya ayaana ku kulmaya gudaha magaalada Nairobi baadyada soo aadan sida qorshuhu uu yahay haddii uusan baaqan ajandaha qorshaha iyo sida ay dowladda Kenya ka doonayso balse waxaa ka soo sokeeya qorshe kale oo ay labada garab ka fulinayaan gobolka Gedo iyo dhaqdhaqaaqyo xoogan abaabul kicin bulsho iyo sidoo kale waxyaabo kale ayaana ka soconaya guud ahaanba gobolka oo siyaabooyin kala duwan garabyadan ay isugu hayaan walow aanan la ogeyn halka uu saldhigi doono guud ahaan intaas ayaan ku soo afbeeraya tan iyo kulan dambe nabadeen